asxaabi waan salaamay dhammaantiin. anigu aad baan u fiicnahay. fikrad yar baan rabaa halkan inaan idinla qaybsado. waxaan xoog uga fikiray maalmihii ugu dambeeyey sida maaragtay ilaahay naxariistiisu u badantay, sida ilaahay noogu naxariis badan yahay. inta maaragtay Soomaaliya ku dhalanay ayuu ilaahay wadamadana keenay. isagaa ilaahay naxariis badan uu maaragtayna hoos keenay dadka aanaan dhiigyo dheecaantoona wadaagin ee maaragtay ay lagu sheegay inay gaal qaawan yihiin oo cadaabta gelayaan. ay maaragtay anaga magangelyana siiyeen, nabadgelyana siiyeen, ayna tuseen inay jiraan wax la yidhaahdo xuquuqda bini-aadanka. aniga noloshayda maaragtay waxa weeyaan, haddaad dukaanka tegtid waxaad arkaysaa qof khaniisoo dukaanka shaqeeya. haddaad bas raacid waxaad arkaysaa qof khaniisoo bas ka wada. haddaad meel ka shaqaysid waxaad arkaysaa qof khaniisoo kula shaqeeya. dhakhtarkaygu waa khaniis, neeraska aan u tagaa waa khaniis, dadka madaxda ku jiraa waa khaniisiin, wasiirada qaar baa khaniisiina, dadka tv-ga aan ka daawado habeen walba dad khaniisiin ah baa ku jira oo aan arko. markaa sidaa darteed taas waxay ii suurtagelisay inaanan isku arkin inaan qof keligii feeling gaara haysta ahayn, amba xanuunsanaya, amba wax ka khaldan yihiin. inuu ilaahay bulsho badan oo kala duwan, oo kala midab duwan, oo kala sex duwan u abuuray. taasna markaa waxay dareensiinaysaa inay maaragtay jiraan nature-ka inay qayb ka mida tahay waxaan ahay. ta kale labaad waxaa dareemay, waxaan arkay maalin dhaweyto inaan wiil tiktoka ku jira oo leh maaragtay waxaa naagnaagta iga dhigay amba gabadha iga dhigay. waxay timaada gabadh shaydaamada habeenkii. gabadhaa shaydaamada u timaadaa waxay tahay waa waxay bulshada u sheegayso qofka maaragtay inuu khalad yahay, inuu wax xun yahay, inuu wax xun sameynayo. wataas weeyaan markaa qofku markuu naco qayb jirkiisa ka mid oo haydgareeyo, markaa shaydaamad bay kugu noqonaysaa. caruurta reer Soomaalida ee Soomaaliya joogtaa ma haystaan jaaniskaas oo kale.